English. English. Waxaa dhageystayaa casharkeenan maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qaybo ka mid ah nouniska oo aanan u dhammaystirin, laakiin hadda aanu rabno si fiican inaan u dhammaystirno. waxayna yihiin qaybaha ay u kala baxaan pronounsku. Dabcan nouniska waan ka soo baxnay, si fiican ayaa uga soo baxnay, laakiin pronouns ayaanu si fiican u soo dhigay. Pronouns laftooda waa soo qeexnay, laakiin maanaanu dhammaystirin markii hore. Hadda ayaa si fiican u dhexgelinaa, waanu rabnaa inaanu dhammaystirno. Pronounska waxaan u qaybinaa baanu niri 5 qaybood ayaa loo qaybiyaa. 5 qaybood tan ugu horeysa waxaa weeyaan oo la yiraahdaa personal. Personal pronoun. Personal pronoun wuxuu yahay macnihiisu waxaa weeyaan waa wax shakhsi iska leeyahay. Shakhsi baa iska leh, dad baa iska leh, qof ayay macnaha tilmaamaysaa inuu iska leeyahay. Qof baa iska leh. Saa daraateed personal pronounsku waxaa loo qaybiyaa 1 sida he oo isaga ah, she, it, I, they, we, you. Waxaa loo qaybiyaa intaas 1 2 3 4 5 6 7 toddobaas loo qaybiyaa. Marka waxa weeyaan he waa isaga, she waa iyada, it waa waxa weeyaan it waa isaga ama iyada oo ah things waxyaalaha aan noolayn. I aniga, they iyaga, we iyo anaga, you idinka ama adiga. Labadaba waa oran kartaa. Marka waa markay subjective ay yihiin. Subjective waxaa la yiraahdaa marka fal ay sameynayaan. Subjective markiisa ay yihiin objective waxay noqonayaan sidan, ay isku bedelayaan. He waxay isku bedelaysaa him, ayay isku bedelaysaa. I waxay isku bedelaysaa me. They waxay isku bedelayaa them. We waxay isku bedelaysaa us. It waxay isku bedelaysaa it deedii bay noqonaysaa. Oo objective ah, fal baa ku dhacay weeyaan. You waxay isku bedelaysaa you deedii bay iska ahaanaysaa. She waxay isku bedelaysaa her. Objective sheedaas marka waxay isku bedeli her. Fal ayaa ku dhacay, fal ayaa dusha kaga sameeyay. Mathalan tusaale, I saw him, waan arkay. Himta marka iyo me iyo them iyo waa marka objective ku dhaco, fal baa ku dhacay. Saa daraadeed bay isbedeleen, waxayna isku bedeleen erayadaas kale. Pronouns waxaa kaloo loo qaybiyaa oo jira tan labaad waxaa weeyaan pronounska loo qaybiyo possessive pronouns. Possessive pronoun waxaa weeyaan waa lahaanshaha. Waxaan waa waxay markaa rabtay inaad tirahdid weeyaan. Maxaa ka mid ah intii aan soo sheegay 7 bay qaadanaysaa. Waxaan waa waxaygii. My oo ah waxaygii. I oo kala bay leedahay. Waxayga weeyaan my baby ilmahayga, my child, my book, my pen qalinkayga oo kale. Waxaa kaloo oran kartaa mine waxayga. Idan waa oran kartaa, laakiin tan waxay uga duwan tahay
adjective weeyaan, gadaal baa noun ka raacay, tan laakiin ka raaci maayo. your waxaaga, her waxeeda, his wixiisa, their waxooga, iyo idis waxeeda. intaasna waxaa la yidhahdaa possessive pronounkaas baa wuxuu yahay mid lahaansho ah. marka mar walba inaa wax lahaantid, my pen qalinkayga, my shirt, mine, this is mine, kan waa waxaygi, your waa waxaaga, her waxeeda, his wixiisa, their waxeeda, iyo waxeena ours weeyaan. taasna our meesha spaceka yar, our waxeena, our you are. intaas marka waxaa la yidhahdaa possessive objective pronouns. waxaa kaloo ku xiga, oo kale reflexive. tan saddexaad reflexive pronouns. reflexive pronouns maxaa ka mid ah? iyaduna waa intiiba kusoo laabanaysaa. waxa weeyaan reflexive pronounsku inta badan shay ay tilmaamaan, inta badan adkayn weeye, inta badan adkayn. waxay adkaynaysaa shaygaas falka sameeyey. marka waxaa ka mid ah myself baan u raacin, self baa raacsi. intii pronounska ee ahayd hadda aan soo dhaafnay ee ahayd yacni pronouniyada aan soo raacba self gadaal laga daraya. tusaale myself, qudhayda waxaa sameeyey, I myself did it, anaa sameeyey. himself qudhiisa, himself dadka qaar baa his self la yidhahdaa, laakiin his self ma himself weeyaan. herself qudheeda, yourself qudhaada ama qudhiina. marka qudhaada weeye, tan waa singular. marka plural laga dhigayana waxaa weeyaan yourselfis, qudhiina. iyo tan ugu dambeysa oo ah, ama labada kale ugu dambeeya, themselves iyada qudhooda, ourself qudheena, iyo itself shaygaas nafsadiisa, qudhiisa. markaana waa reflexive. waxaa ku xiga relative pronouns. aad bay muhiim u tahay, waxaana waa pronounyo inta badan pronouns waxaa weeyaan tilmaam bixinaya. waxay tusaan connectionka ama xiriirka, relationka ka dhexeeya, relationka ka dhexeeya the subject of a sentence. jumladaas falaha ku jira ama faacilka ku jira, iyo and the object or the subject and the what side out and what side of the, iyo waxaa laga yiri and the objective. macnaha waxay tustaa subjectiga xiriirka ka dhexeeya oo falaha ah, iyo waxaa laga yiri objective, jumladda iyo falaha ay inta badan xiriirka ka dhexeeya tustaa. relative pronouns marka waa kuwan hadda halkaan hoog ku tali doono. who waxaa ka sheegtay inta badan cidda falka samaysa, subjectiga
inta badan lala xiriiriyo, objectiga lalama xiriiriyo. waxaa ku xiga humna waa lidigeeda. waxay wax ka sheegtaa object cidda falka qaadatay oo objectiga ah, markaa sheegaysid baa la xiriiriyaa. labadaas marka dad ayay ku shuqul leeyihiin. labadaasi waa people. labadan dadka iska leh. waxaa ku xiga hows iyo waxa way lahaansho. hows wixiisii marka dad iyo xayawaan baa loo adeegsadaa animal. waxaa kaloo ku xiga which waxaa iska qaata thingska, waxyaalaha thingska ah. That's waa relative pronounka ugu dambeeya, waxaana iska leh dadka, xayawaanka iyo thingska. saddexdaas ku dhaw xayawaanka, dadka iyo waxyaalaha walxaha intaba way iska leeyihiin. intaas oo dhan ka wada dhexeeya. marka who waa subject, whom halkaas waa whom waxa weeyaan waxaa iskale objectiga. labadaas waxaa loo isticmaalaa dadka. waxaan dhan kulli waxaan soo gelin doonaa jumlooyin baa mar soo gelin doonaa, laakiin naxwo ahaan haddaa sii qaadanayna hows dadka iska leh iyo animalska labada waa loo isticmaalaa. which waxaa iska leh thingska, goonihii ay ku gooni tahay thingska, waxyaalaha walxaha ah iyo xayawaanka baa loo adeegsadaa. dadka, xayawaanka iyo walxaha intaba baa loo adeegsadaa. saas marka farqiyadu ku kala duwan yihiin. waxaa kaloo noo haray tan kale ama afraad ama shanaad maqa waxay tahay waxa weeyaan demonstrative. baa la yidhahdaa demonstrative pronoun. waa demonstrative. kan waxa weeyaan waa pronoun tusinaya ama caddeynaya cidda laga hadlayo. waa ishaaro, ismu ishaaro meesha lagu yidhahdo kala wey. marka waa tilmaame. waxaan lagu soo koobaa inay yihiin 3 wax kala maaha. waa this oo kan ah, that oo kaas ah oo fog, iyo this iyo those. waa intaas. laakiin biyo dhac waxa weeyaan labadan this iyo that. this waa wax dhow bay tilmaamaysaa, thatna waxay tahay wax fog. markaad jumcinaysa this waa this kuwan, that oo la jumciyeyna those weeyaan. this kan, that kaas, this kuwan iyo those kuwaas. tusaale yar haddaan ka bixino waxaan oran karnaa this is abdi. kani waa abdi. that is jama. kaasna waa jama. marka saddexdaas ba saasa loo kala qaado. labadaasa muhiim ah, intaan kalena waa intaan. marka in yar oo waxaanu qaadanaynaa exercise ah. exercisekaas ayaanu ku keeni doonaa wax aad iska fudud. marka aan kusoo khatimi doono kaliya casharkeena. exercise badan baa noo jira iyo muraajacooyin badan, laakiin kuwan halkan in yar ayaa waxaanu ka tilmaami doonaa.
pronoun-ka ayaa waxa kasoo saaraysa jumlooyinkan soo socda. Kow, waana tilmaanta pronouns-ku wuxuu yahay markaas. How are you? Pronoun-ka ayaa tilmaanta. Labo, I'm fine. Aan waa fiicnahay. How are you see tahay? I'm fine. Waa fiicnahay. Okay. Ahmed ninkii la yiraahdo is the farmer, is the farmer house, is the farmer house gurigiisu got paint, good. halkan waxa weeyaan Ahmed ninka la yiraahdo is the farmer, waxa weeyaan beeraleygii house gurigiisu got paint, uu gubtay. got paint weydiis halkan waa ow. iyadan waxaa soo saaraysa sidoo kale nouniska soo saaraysa. waxaa ka wada pronoun-ka iyo noocu siiyay ila pronouns-ku si kala qaybsamaan. tan ugu dambaysa kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan tan we are walking waxaan ku soconaa to the zoo-ga ku soconaa. iyadana waa soo saaraysaa sidaas iyo nabadgelyo.